hay-adda Gift of the Givers ayaa maanta soo gabagabaysay xiridda buqatadii webiga Shabeelle uu ka sameeyay deegaanka Bayxaw oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta Shabeellaha Dhexe waxaana buqatadan ay ka socotay deegaanka Bayxaw wax ka badan 6 bilood iyadoo hay-adda ay ku qaadatay inay xirto buqatada muddo 2 bilood ah gudoomiyaha deegaanka Bayxaw ayaa u mahad celiyay hay-adda iyo tuulooyin kale oo uu sheegay inay u soo gurmadeen dadka deegaanka Bayxaw ونني ناقله ونقفنا عن كهرم ينتاسو عشاء الشيء صباح والبكسوك اللحن وعاقل ما هذا الأروع لنا لما تقولوا وقعدنا نسي شيء لو سوق ربطي رهان ولا لهن بار ديره كل مسيرو dhinaca kale agaasimaha hay-adda Gift of the Givers ee bariga bartamaha Afrika Cabdirasaaq Maxamed Xaashi ayaa isna ka hadlay goobta waxaana uu sheegay in hay-adda ay qabanayso wixii karaankeeda dib ugu fikirayaan sida hadda gudoomiyaha afkiisa aan ka dhadhaminayo inay doonayeen bal dib inay beerihi u fashaan oo la doonayo wixii loo qaban karan in loo qabto arrintaas runta maamulka gobolka ayaa aad uga qayb qaatay haddii ayaga ayna soo xiriirin lahayn anaka maan iimaanin ayaga nala soo xiriireen ayagana soo xiriiriyeen ayaga naga soo codsadeen inaan imaano baadiyahan anaka wixii tabartayadu maan qabanaa oo markii naloo soo gudbiyay haddana maxaan filayaa anakoo wada jiray gobolka iyo Gift waxaan sii qaban karno oo dadkaas sidii ay kaga sii badbaadi lahaayeen arrimaha hadda gudoomiyaha degmada oo naga codsaday xaajigana oo naga codsaday inaan insha Allah sii wadi doono maxaa weeye waxyada aan ballan qaadayna maxaa weeye wixii tabartayada waxaan tabartayada ma ballan qaadin ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay kusimaha gudoomiyaha gobolka ahna gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda waxaana uu sheegay in dadka looga baahan yahay inay gacmahooda wax ku qabsadaan tuulooyinkan degan biyuhu waa dhibaato waxaan rabnaa haddii wixii la xiray dadaal in la sii muujiyo meelihii uu ka jilacsayana maaragtay webiga sidoo kale la sheego intay dhibaatadu aysan imaan ama uusan meesha meel laga awood badan aysan naqan si aan maaragtay u xallinno dhibaatadeeda marka aad iyo aad u mahadsantihiin in allaale inta ka qayb qaadatana u mahad celinaynaa dhammaan iyo ummadda maaragtay ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan leenahay qof waliba maaragtay waxa wanaagsan inaan maaragtay gacmahayna ku ciilbaxno gacantaada biyo sacbadaada looga dirgaanay marka inay beerahayna tabcano xoogayna aan ku tashano aan wax qabsano ayaan ku gaari karaa maaragtay maslaxadayna iyo horumarkayna in Yusuf Abubakar Ibrahim telefishinka caalamiga Home Cable Jowhar